Halkani waa Gaacir Media. Dhageystayaasheena iyo daawadayaasheena sharafta badan. Soo dhawaada wararkeena. Qodobada wararkeena ugu waaweyn waxaa ka mid ah Shiinaha oo tijaabiyay gantaal nuclear xambaaro oo hypersonic ah. WHO oo mar kale sheegtay inuu sii jiri doono cudurka COVID-19. Koonfurta Kuuriya oo sameysay bandhig carweed warshadaha difaaca waddankeeda la xiriira. Iyo waddanka Barbados oo xilki ka qaaday boqoradda Shiinaha oo tijaabiyay gantaal xambaarsan nuclear oo hypersonic ah. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in ay si dhow ula socoto barnaamijyada gantaalada nuclear-ka xambaarsan kuwa hypersonic ah kadib markii ay dowladda Shiinaha tijaabisay gantaal nooca nuclear-ka xambaarsan ee hypersonic ah. Majallada Financial Times bishii tagtay ee Agoosto 2021 ayaa daabacday in dowladda Shiinaha tijaabisay gantaal nuclear xambaarsan oo nooca hypersonic la yiraahdo ah. Waqtigaasi xogeyaha difaaca Mareykanka kama hadal warbixintan lagu daabacay majallada Financial Times. Dhinaca kale, dowladda Shiinaha ayaa iska fogeysay eedeymaha oranaya in ay tijaabisay gantaal nuclear xambaara oo hypersonic ah ee xawaarihiisu dheereeyo, balse dowladda Shiinaha waxay sheegtay in waxa ay tijaabiyeen ay ahayd dayax-gacmeed hawada sare loo diray oo ay isticmaalayaan arrimo rayid ah. Falanqeeyaashu waxay amuurtani ka yiraahdeen sida tan: haddii warbixintani run tahay, Shiinaha ma haysto gantaal nuclear xambaarsan oo hypersonic ahna gantaal xawaarihiisa guuxiisa ka dheereeyo 5 jibaar oo kaliya waxaa kale oo uu haystaa gantaalada balaastikada ah. Falanqeeyaashu waxay intaa ku darayaan gantaalada hypersonic iyo gantaalada balaastikada in ay Shiinuhu awood u siinayaan inuu bartilmaameedsado waqtiga iyo goobta uu rabo si uu duqeymo ugu geysto. Koonfurta Kuuriya oo sameysay bandhig ama caro wax soo saarka warshadaha difaaceeda ay ku muujinayso. Bandhigan ay Koonfurta Kuuriya ku soo bandhigtay wax soo saarka warshadaha difaaca waddankeeda. Waxyaalaha lagu soo bandhigay halkaasi waxaa ka mid ahaa noocyada diyaaradaha ee kala duwan sida diyaaradaha jeedka ee jiilka shanaad, gantaalo casri ah iyo wax la mid ah. Warbixintan ayaa intaa ku daraysa in madaxweynaha Koonfurta Kuuriya Mr. Moon uu dhaqaajiyay horumarka warshadaha difaaca waddankiisa. Sidoo kale, ujeedada laga leeyahay bandhigan ayaa lagu sheegay sidii Koonfurta Kuuriya ku hanan lahayd hogaamiyaha wax soo saarka warshadaha difaaca adduunka. Bandhigan waxaa ka qayb qaatay 28 waddan, sidoo kale 400. WHO oo mar kale sheegtay in 2020 iyo wixii ka dambeeyay uu sii jiri doono cudurka COVID-19. WHO oo digniin ka soo saartay in COVID-19 2020 iyo wixii ka dambeeyay uu adduunka ka sii jiri doono. Sababta sii jiritaanka COVID-19 ayay WHO ku sheegtay in ay tahay isu dheelitirnaan la'aanta iyo sinaan la'aanta ka jirta qaybsashada tallaalka COVID-19 looga hortagi lahaa. WHO ayaa sidoo kale dhalishay wadamada UK iyo Canada oo ka soo bixi waayay ballantii ay qaadeen, taasoo ahayd in ay tallaalka wada gaarsiin doonaan wadamada saboolka iyo wadamada hodanka ah ayagoo adeegsanaya barnaamijkooda tallaalka ee COVAX. Balse WHO siday sheegtay arrinkani waa lagu guuldareystay.